xaruntan waxyaabaha nagu dhaliyay inaan furno ama aan sameyno waxay tahay innagoo arday ah marka internship marayno isbitaallada ku yaala gobolka Banaadir ayaa waxaan ka aragnay baahiya oo ka jira dhiig la'aanta gobolka Banaadir. Markaasa waxaan bilaabnay inaan diiwaan gelino ama aan qorno dadka asxaabta nala ah ama nagu dhow familka iyo inaan dhiig noocooda iyo lambarradoodii aan sameyno. Annagoo intaan ku shaqeynayna waxaa dhacay qaraxii weynaa 14 Oktoobar oo 2017 oo ahayd musiibo qaran. Taasaa waxay keentay inaan fikirkeennii diiwaangelinta u bedelno xarun keyd dhiig ah ama center oo dhiig lagu keydiyo. Halkaasay ka timid inaan hirgelino keydkan dhiig hadda aan ku shaqeyno gobolka Banaadir, Banaadir Blood Service. Dhiigga annaga hadda xarunta ahaan waxaan ka helnaa dhowr way oo kala duwan. Waxaa ka mid ah in baraha bulshada aan isticmaalno oo aan xarunta aan ku leenahay page-ka ah inaan ku baahino dhiigga markaas baahida ka jirto, iyo in muxuu ahaaye campaign ama aan sameyno olole ah oo dhiig shubid ah oo aan ka qabanno jaamacadaha, meelaha public-ga ah oo dadka bulshada iskugu yimaadaan, iyo dad isxilqaan ah oo runtii arka markay waddada marayaan ama naga soo raaco page-ka. Goobaha caafimaadka ama isbitaallada runtii dhiig naga soo dalbada ayaga waxay noo soo diraan familka oo bukaanka dhiig u baahan. Familkiyaa noo imaado asigoo warqaddii caddeynta wato dhiig u baahan yahay noocuu yahay hadduu yaallo annaga markaas waxaan ku siinaa call box oo runtii aan ugu talagalnay ama qaboojiye ah oo dhiigga lagu qaado oo lagu siiyo muxuu ahaye bukaanka. Ayaga markaa qaata qofkii aan imaan karin ama dad haysan ama aan bukaanka ka soo tegi karinna waa u deliver garaynaa in aan ambulance uga qaadno ama in bajaaj aan u saarno. Qaabkaasaan ku gaarsiinaa isbitaallada. Dhiig shubidda dabcan faa'iido badan ku xusan. Ay ugu horeyso kow caafimaad ahaan qofka inuu helayo muxuu ahaaye baaritaan oo free ah. Sidoo kaleetana markuu dhiig deeqa u noqdo ama dhiig uu shubana qofka waxaa jirkiisa soo gelayo cells cusub oo runtii jirkana muhiim u ah. Sidoo kale faa'iida ay leedahay waxay tahay in bukaan kaa liita caafimaad ahaan oo tabar daran ay u tahay badbaado oo runtii ay tahay adna aad ka helaysid xasanaad oo ajir oo Ilaahay kaaga abaalmarinayo badbaadinta aad u samaysay bukaankaas u dhiban dhiigga. Maantoo kale 14 June dhammaan adduweynaha waxay ugu dhigan tahay maalin weyn oo runtii ah inaan dhahno keeni dhiig bixiyaha ah aan dhahno waa mahadsan tahay oo runtii aan ku dhiirigelino. Soo marka hadda caalamka sanad walba waxaa la isla qaataa slogan ama halkudhig oo runtii adduunka dhan laga isticmaalo. Hadda sanadkan oo kale 14 June 2022 oo kale waxaa halkudhig ahaan la isuga qaatay dhiig bixintu waa ficil midnimo ah, qayb ka noqo oo badbaadiya naf.